maalintuu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda leeyda xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sankaraada way ku dul ooyday markaasuu ku dhina maxaad loo yeesaa markaasay ku tiri kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan ku noqotana kuma hayo markaasuu ku yiri dhageyso halka u bax tuurka u bax buu ka yiri safar jamaa muuminiina soo mari doontee kuwa baa aniga aasi doonay igu yeedh buu ka yiri markaasay ku tiri xagee dad aan ka arkaa bay tiri xagee dad ka soo maraan xilliga jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay hadee toole oo xaskiina mar hore laga noqday dadka dariiqa soo marayay sheegaysa waa dadkee bay ku tiri nayaay dhageysa buu yiri koox anigu aan ka mid ahay anagoo masjidka dhex fadhino xalaqad fadhina ayuu nabigu nagu soo baxo wuxuu yiri mid baa inaga mid ah innika keligii cidla ku dhimani doona keligii buu cidla ku dhimani doona aaskiisana jamaacad muslimiin oo muuminiin ayaa ka qayb gali doonta ragii maalinta aan la fadhiyay nin kasta oo dhintay nin magaalo ku dhintay nin tuulo ku dhintay nin reerkiisiiba ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nabigu sheegay ee jamaacada muuminiintu aaskiisa ka qayb gali doonto waa anige ordo tuurka u baxo jamaacadii nabigu sheegay baa soo mari doonta igu yeedh buu ka yiri bal sida hadalka nabiga u rumaysan yahay dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhaxeeya waa yaqiin khabarka nabi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nabigu uu sheegay buu waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kale oo dhaway wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkooga ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa aniga jamaacadu nabigu sheegay ba aaskayga ka qayb gali doontee halka u baxo joogsa buu jamaacadii baad arki doontaaye isaguna sankaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xagga iyo xagga wax ka soo socday eegta haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saarta haddana way ku noqotaa siday u noqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii baa markaa sidaa u tidhi baa la dhisi markaa bay soo leexdeen haweeney bay arkeen buurta dul taagan waxay maxaa cidlada ku dhigay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayhi wasallam nin nabi maxamed saaxiibkiya ayaa cidlada ku dhimanaya kaalayo ila aasabay ku tidhi markaasay dhahdeen oo waayo waxay dhahdeen waxay tidhi waa abu dar al-ghifaari radiyallahu anhu abu dar baa cidla ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceen ay dhahdeen nufdihi bi aabaayina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidla ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen oo indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta muuminiin baatiinoo nabiga inay sii sheegay buu yidhi xadiiska nabigu markiiba u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nabigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaad ee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jidhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen marayna waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaali gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa shahwadaaday taaiirisaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraantu taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa